may baahil jeyli wareegay taliyaaga cusub qaybta lixdamaad dowladda federaalka Soomaaliya oo uu saamaga dhowtay Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciirow may bana munaasabad xil wareejinta ku qeyb galay taliyaaga ciidanka lugta xoogga dalka Soomaaliya Jenaraal Cabdi Xamiidi iyo madaxda howlgelinta ciidamada xoogga dalka Jenaraal Madoowe Israa'iil kala taliyaaga hore qaybta lixdamaad Jenaraal Maxamed Cabdiraxmaan Timcade oo xil wareejinta ku hadlay yamayba ku sheekay intii uu maamulay taliska qaybta lixdamaad sidii uu iyo ciidanka qaybta lixdamaad aan sugan amniga deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya uu taliyaaga sheegay in taas ka koyti qaabkii faylahay oo la shaqeeyeen bulshada kulay soo socotaan isbedelku waa caadi saraakiishuna waa isbedeshaa maadaama aniga taliyaaga qaybta lixdamaad ahay in muddana aan soo hayay waa la bedelay أهلا يقول بدل أنا ما تقانان جنرال محمد شيخ اللي يقول بدلي شال يعني إبراهيم يروح بدلي أصلا بدلي ولا بدلي أنتي أنجو من كوي تمام كبلاد وما بدي شغالين هني تالي بدنا غير بدنا كهذا الشيء وهيك كمان تاي أفر جوتو يتطبيق طبعا أوريك كمان تاي غير في الحين أفر جوتو يتطبيق طبعا أوريك وهنا كلا دقيقة سد حد القبل شباب الله هل قوتا دقن باي هل قوتا دقن بكل هل قوتا دقن ورفضنا وتضمين تقول ورفضنا ودي كوي تمام كبلادنا جوجي فأنا حل كان هاي إلهي بيجوا عباس صغير هذا بيدو عندنا الجنود ديلين لأن بيستولوا لهم وحين قرح لما سمينين كمان إيمان شقي كتمت taliyaaga xilka la wareegay Jenaraal Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciirow iyo hadal kooban oo uu ku jeediyay munaasabada ubayba korsurumay in uu wal ku bedeli doona hanaanka maamul ciidan ay ka shaqeeyaan taliska qaybta lixdamaad uu soo ballan qaaday intii uu xil ka hayay inuu xoogga saar doono gudashada waajibaadka dowladda federaalka Soomaaliya aan agmati isla maraan taasna ciidanku ku weero doona hana tusaale naqdan ciidamada Soomaaliya saraakiisha qaybta lixdamaad halkan fadhida waxaan u jeedaa in maanta xilkii baan dhamaanteen goobjoog ka wadanahay in xilkii qaybta lixdanaad aniga lagu soo wareejiyay taas oo aan rajaynayo inaan dhamaanteen si u wada shaqeyno dalkan waa naga wada dhaxay dhamaanteen cid gaar u leh ma jirto mas'uuliyadda waa naga wada saaran tahay min dable ilaa iyo taliyaha ugu sareeya waxaa la rabaa inaan mas'uuliyaddeena qaadano dhamaanteen aniga keligay ma aha waxaan rajaynayaa inaan isku hadaf noqono ka adkaano cadowga gudaha iyo dibadda Jenaraal Cabdi Xamiid Maxamed Dirir taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka yaan mahadnaqay taliyigii hore ee qaybta lixdamaad sidii faylahayti oo uu ku shaqeeyay sidoo kale namay baan ka baaqay saraakiil qaybta lixdamaad in la shaqeeyaan taliyaaga cusub taliyigii hore oo runtii si aadan u hadlay wax badan soo qabtay aad buu ugu maadsan yahay sida wanaag gale iyo meesha uu soo gaarsiiyay xilku waa meerto ninba maalin baa loo dhiibaya ragina halkaan fadhiyo kulligiin mid ka noqon doona Ilaah baa laakiin qofku waa inuu ka tagaa wax la taaban karo birina lagu soo xasuusto laakiin inuu ka tago wax markii uu taga la yiraahdo warna kaxee balaayadu waa kan Ilaahay dhaafiyo qof walba marka mas'uuliyadu taliyaasha kaliya ma dhamaantiin mas'uuliyadu waa wada saaranta waxaan markaa idin kala dardaarmayaa sidii uu taliyihii hore Timcade uu idin sheegay oo uu yiri si niyad leh baan u soo dhaweynayaa taliyaha cusub Maxamed Sheekh annaguna waxa idin ku boorinaynaa inaad si dhow ula shaqeysaan